maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug State ay wehelinayaan mas'uuliyiin ka tirsan ururka Al-Sunna wal Jamaaca ayaa waxay galabta ka soo degeen garoonka dawladuhu ka haadaan ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi. wafdigan oo ahaa mid aad u culus ayaa waxay warbaahinta ugu warameen garoonka dawladaha ee Wilson waxaana halka hadallo kooban ka jeediyay labada madaxweyne ee Caalin iyo Faroole iyagoona ka hadlay ujeedada safarkooda oo ahayd inay ka qayb gali doonaan shir dhawaanahan ka furmi doona magaalada Nairobi. Kama soconaa shirkan wada tashiga arrimaha Soomaaliya oo laga tashanayo muddada gaaban oo dawladda ku meel gaarka uga dhimatay transitionka Soomaali waa la socotaan intay dhibaato soo martay maanta marka la leeyahay laga saaro ama laga tashado qaabkii dariiqa fiican ay u leedahay marka war oo dhan waxaan heli doonaa hadii alla yiraahdo wada tashigeena markaan isku nimaadno ayaan waxaa kaloo iyaguna si diiran wafdiga ugu soo dhaweeyay garoonka jaaliyadda Galmudug State oo ka dhex muuqdo Xasan Jabuuti iyagoo soo bandhigay heeso hidiyo dhaqana iyo hees cusub oo waliba hadda loo sameeyay maamul goboleedka Galmudug State.